golaha shacabka iyo madaxweynayaashii hore ee dalka oo xalay kulan ka yeeshay jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya. Muddaxileedka madaxweyne Farmaajo oo dhammaaday iyo mucaaradka oo sheegay in laga bilaabo xilligan aysan Farmaajo aqoonsanin madaxweynaha Soomaaliya. xubnaha beesha caalamka ee qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo ka shiray muranka weli ka taagan arrimaha doorashooyinka. diyaaradda ay leeyihiin ciidanka AMISOM oo ku burburtay garoonka diyaaradaha Beledoogle ee gobolka Shabeellada Hoose. maamulka gobolka Gedo oo sheegay in ciidamadii lagu qabtay dagaalkii ka dhacay Beled Xaawo loo soo qaaday Muqdisho. xildhibaanada golaha shacabka oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho. faahfaahin ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. iyo madaxweynaha waddanka Haiti oo ka badbaaday afgambi military. guddoonka golaha shacabka iyo madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa xalay kulan ka yeeshay jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya. dhinaca kale muddaxileedka madaxweyne Farmaajo oo dhammaaday iyadoo mucaaradku uu sheegay in laga bilaabo xilligan aysan Farmaajo u aqoonsanayn madaxweynaha Soomaaliya. cali cilmi salaad ayaa ka waramay. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya shir xalay magaalada Muqdisho ku dhaxmaray gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo xubno ka socday midowga musharaxiinta kaas oo ay uga hadlayaan xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. kulanka ay yeesheen gudoomiye Mursal iyo madaxda mucaaradka ayaa la tilmaamay in musharaxiinta madaxweyne ee dalab u gudbiyeen gudoomiyaha golaha shacabka balse uu ku gacan seeray sida la sheegay. wararka ayaa sheegaya in midowga musharaxiinta ay u sheegeen gudoomiye Mursal inuu idlaaday muddaxileedka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaas darteedna uu qaato doorkiisa oo uu noqdo kusime. wararka ayaa intaasi ku daraya in gudoomiyaha golaha shacabka uu ku gacan seeray dalabkii ay ula tageen madaxdii ka socotay midowga musharaxiinta. dhinaca kale qoraal ay soo saareen golaha midowga musharaxiinta ayay kaga hadleen muddaxileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna shaaciyeen in laga bilaabo 8 February 2021 oo ku asteysan maanta oo Isniin ah aysan u aqoonsaneen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. qoraalka ayaa lagu yiri maanta oo taariikhdu ay tahay 8 February 2021 waxaa ku eg muddaxileedkii madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qodobada 91 iyo 96 ee dastuurka ku-meel gaarka ah in muddaxileynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay tahay 4 sano oo ka bilaabata maalintii xilka loo dhaariyo. qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ku fashilmay in dalka uu ka hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah oo waqtigeeda ku dhacda si waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka. madaxweynuhu waxa uu ku fashilmay hirgelinta heshiiskii doorasho ee 17 bishii September ee 2020 isla markaasina caqabad uu ku noqday xal u helista tabashooyinka ku gadaaman dhaqangelinta heshiiska sida lagu yiri war-saxaafadeedka ay soo saareen golaha midowga musharaxiinta. sidoo kale warqadooda ayay waxay ku xuseen in gudoomiyaha golaha qaranka uu shir isugu yeero madaxda dowlad goboleedyada gudoomiyaasha labada aqal wakiilo ka socda golaha midowga musharaxiinta iyo ururada bulshada rayidka si loo dhameystiro hirgelinta heshiiskii 17 September. doorashada Soomaaliya ayaa noqotay mid weli murankeeda uu taagan yahay xilli xalay saqdi dhexe uu ku ekaa muddaxileedkii madaxda dowladda Soomaaliya. xubnaha beesha caalamka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa ka shiray muranka weli ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Hanad Maxamed Karaama ayaa faahfaahinaya warkan. waxaa xalay qadka internetka ee Zoom-ka ku wada hadlay wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya iyo madaxda maamulada Galmudug, Hirshabeelle, Puntland, Jubbaland kuwaas oo weli ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. kulankan xalay ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagreen oo galinkii dambe ee shalay dib ugu laabtay magaalada Beedhabo. wararkana keelna shirkan dhex maray wakiilada beesha caalamka iyo madaxda maamuladan ayaa sheegaya in markaasi laga wada hadlay arrimaha siyaasadda dalka oo hadda maraysa meel xasaasi ah. si gaar ah kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray marxaladda uu dalku geli karo wixii ka dambeeya maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 8 Febraayo maadaama uu ku egyahay muddaxileedka 4 sano ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in uu socdo qorshe maalmaha soo socda magaalada Muqdisho la isku keenayo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulada dalka ka jira si mar kale loo wada hadlo. beesha caalamka ayaa hadda doonaysa in madaxda Soomaalida
ay isku keento shir ay garwadaan ka tahay maadaama ay ku guuldareysteen inay ku heshiiyaan arrimaha doorashada iyadoo dhowaan uu fashilmay shirkii Dhuusamareeb 4 ee ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Madaxweynaha 4 sano ee madaxweyne Farmaajo ayaa maanta ku eg iyadoo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 8 February 2021 waxaana madaxweynaha si rasmi loo doortay maanta oo kale 2017. diyaaraday leeyihiin ciidanka amisom ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha Balidoogle ee gobolka Shabeellada Hoose. Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan ayaa ka waramay. howlgalka nabad ilaalinta ciidamada midowga Afrika ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ay adeegsadaan ciidamada amisom ay ku burburtay gegada garoonka diyaaradaha magaalada Balidoogle ee gobolka Shabeellada Hoose. diyaaradda ayaa waxa ay halkaasi ku burburtay maalinkii Jimcaha ee 5 bishan sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay amisom waxa kaloo ay hadalkeeda ama war-saxaafadeedkeeda intaas ku dartay in diyaaradda ay 4 askari saaranayeen dhammaantoodna la badbaadiyay imakana xaaladooda caafimaad ay tahay mid aad u degan. dhinaca kale howlgalka midowga Afrika ayaa sheegay in baaritaano ay soconayaan walow warbixinada hordhaca ay muujinayaan in diyaaradda ay qabsatay cilad dhinaca farsamada ah. diyaaradda waxaa lahaa militariga waddanka Uganda inkastoo ay ka caawinaysay ciidamada amisom ee jooga Soomaaliya la dagaalanka ururka Al-Shabaab oo dagaalo adag kula jira dawladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda. maamulka gobolka Gada ayaa sheegay in ciidamadii lagu qabtay dagaalkii ka dhacay Balad Xaawo loo soo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramaya. dawladda Soomaaliya ayaa Muqdisho ka soo dejisay ciidamadii lagu qabtay dagaalkii ka dhacay magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado isla markaana dagaalkaasi uu u dhaxeeyay ciidamada Jubbaland iyo kuwa militariga Soomaaliya ee ku sugan gobolkaasi Gado. askartan ayaa iskugu jira kuwa isku soo dhiibay dawladda iyo kuwa lagu qabtay dagaalkii ka dhacay Balad Xaawo waxaana tiradooda ay ka badan tahay sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gobolka Gado 200 oo askari iyadoona sidoo kale maanta ay dawladda gobolka Gado ka soo daaburi doonto askar kale oo ka mid ah ciidamada Jubbaland. afeenka maamulka gobolka Gado Cali Yuusuf Cabdullaahi Cali Jubba oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa ka warbixiyay ciidamada lagu qabtay dagaalkii ka dhacay magaalada Balad Xaawo ee la keenay magaalada Muqdisho. ciidankii ama askartii wiilashii la soo qalday Soomaaliyeed dagaalkii 25 bishii aan soo dhaafnay Balad Xaawo lagu qabtay markii horena la keenay degmada waxay dawladda Soomaaliya u soo qaaday halka ay Muqdisho si dhalinyarada yararka aan gaarin markaasna carruurta ay soo qalbeedna ciidamada looga saaro oo ay u noqdaan dadkoodii dalkooda wax la qabsado isla markaasna waxbarashada ay mudan yihiin la siiyo kuwa waaweyn isla markaasna u qalmeen ciidamada ka mid noqdaan raalliga ahna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama booliiska ama nabsugidda ciidamada qalabka sida guud ahaan qaybtay rabaan ay ka mid noqdaan oo joyska ay leeyihiin sidaas ay dawladda federaalka Soomaaliya ugu soo qaaday Muqdisho dhammaantoodna la soo qaaday. dhowr jeer ayaa la soo qaaday waxaana soo qaaday dhowr diyaaradood 227 ayaa la soo qaaday. askar kale ma harin askar waxaa hartay adiga carbaneyn oo sadar ka yar iyadana waxaa in la soo qaado oo mataqaanaa maanta in la soo qaado ay qorshuur ciidamadan kuwii dagaalka intuu socday isdhiibay u badan yihiin waayo dadka soo dhiibay oo dagaal isku soo dhiibay ma badna adiga 60 meel laakiin ciidanka dagaalka maalinkuu socday 25 bisha ayay inta badan soo dhiibeen oo dagaalka ayaa lagu qabtay. gobolka Gado dhowr mar waxaa ku dagaalamay ciidamada Jubbaland iyo kuwa militariga Soomaaliya iyadoona dagaaladaasi ay ku dhinteen dad badan oo shacab ah sidoo kalena uu khasaare soo kala gaaray labada dhinac. xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho. Cabdisitaar Xaaji Cali ayaa faahfaahinaya warkan. xildhibaanada waqtigoodu u dhammaaday ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. kulanka ayaa looga hadli doonaa ilaa 2 ajenda kuwaas oo kala akhrinta saddexaad ee wax ka beddelka sharciga waxbarashada heerka koowaad kan labaad tacliinta sare ee Soomaaliya iyo warbixin ku saabsan waxqabadka boqolkii maalmood ee la soo dhaafay xukuumadda ra'iisul wasaare Roble. xildhibaanada golaha shacabka ayaa xalay loo diray fariin lagu wargelinayo kulankan. ra'iisul wasaare Roble ayaa golaha hortagi doona maalinta Biriya oo 9 Febraayo ku beegan oo ah talaadada soo socotay ee Biriya waxaana xildhibaanada ka hor sharaxi doona warbixinta maanta loo qaybinayo
ee waxqabadka xukuumaddiisa. tuhun iyo guux fara badan ayaa ka jira magaalada kaasoo laga qabo in xukuumaddu codsi muddo kororsi ay la hortegi doonto golaha shacabka. sidoo kale waxaa jira ololo muddo kororsi oo si hoose uga socda magaalada inkastoo aan weli si shaacsan aan loo soo bandhigi karin. kulanka maanta ay yeelanayaan xildhibaanada wakhtigooda uu dhammaaday ee golaha shacabka ayaa imaanaya xilli muddaxileedka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu maanta ku eg yahay iyadoo ilaa hadda aan heshiis rasmi ah laga gaarin muranka ka jira arrimaha doorashooyinka iyadoo uu fashil ku soo dhammaaday shirkii Dhuusamareeba. imikana jubbada hoose faahfaahin ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Cabdimajiid Cabaas Aadan oo Jubbaland KNN uga soo warrama ayaa soo diray warkan. ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa tan iyo xalay ilaa iyo saakay waxa ay baritaano guud ee lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee Kismaayo ka wadaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo kadib markii qarax lagu weeraray hoyga ay magaalada Kismaayo ka degan yihiin agaasimayaasha wasaaradaha gaadiidka iyo kalluumaysiga ee dowlad goboleedka Jubbaland. qaraxa ayaa sida la sheegay waxa uu ahaa mid lagu sii diyaariyay hoyga ay agaasimayaasha ka degan yihiin magaalada Kismaayo waxaana markaa qaraxa ka dhashay dhaawac oo markaa soo gaaray mid ka mid ah dhalinyarada goobtaasi ku sugnaa. goobjoogayaal la hadlay KNN ayaa waxa ay markaasi sheegeen in qaraxan uu ahaa mid lagu diyaariyay mid ka mid ah daaqadaha hoyga ay magaalada Kismaayo ka degan yihiin agaasimayaasha. ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland saraakiishooda hogaaminaysa baaritaanka oo aan xiriiro kala duwan la sameynay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in baaritaanadan ay sii socon doonaan walow ay sheegeen in dadyow aad u fara badan oo lagu tuhmayo in ay weerarkaasi ku lug leeyihiin ay xilligan gacanta ku hayaan waxaana ay sheegeen in saacadaha soo socda ay natiijada baaritaanka ay ka sameeyeen guud ahaan xaafadaha Kismaayo ay warbaahinta la wadaagi doonaan. qofka dhaawaca uu markaasi soo gaaray ayaa la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo waxaana xaaladiisa caafimaad xilligan la tacaalaya dhaqaatiirta cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. maalmihii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo ayaa waxa markaa ku soo badanayay falalka ammaanka lidiga ku ahi waxaana toddobaadyadii aanu soo dhaafnay magaalada Kismaayo xaafada ka mid ah ka dhacay qaraxa nooca bambada gacanta laga tuuro kuwaas oo lagu beegsanayo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland hayeeshe waxaana markaa muddooyinkan dambe Kismaayo ku soo badanayay dilalka bareerka ahi ee loo geysanayo isla mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland. madaxweynaha dalka Haiti ayaa ka badbaaday afgambi ay maleegayeen koox ka tirsan ciidamada dalkaas sida uu sheegay wasiirka cadaaladda dalkaasi isagoo sheegay in kuwii ka dambeeyay falkaasi ay ciqaab mudan doonaan. ugu yaraantii 23 qof oo uu ka mid yahay garsoore ka shaqeynayay maxkamadda sare ee dalkaas iyo saraakiil ciidan ayaa lagu eedeeyay afgambigaasi dhicisoobay. madaxweynaha oo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray qoraal ayaa hadda sheegay inuu caafimaad qabo shacabkuna ay isdejiyaan. dhibaatada ugu weyn ee dalkaasi haysata isla markaana keentay afgambiga ayaa waxay tahay muran badan oo ka jira dhinaca dastuurka dalkaas. madaxweynaha ayaa qaba in muddaxileedkiisu uu dhammaanayo marka la gaaro bisha February 2022 sidaas oo ay xukun maroorsi ku tilmaameen kooxaha mucaaradka ee dalkaasi Haiti.